wamaa bikum min nicmatin fa min allah. wax kasta oo nicmad ah oo idiin soo gaarto waxay ka timid alla subxaana wa tacaala xaggiisa. qofka gala sheegta qofka alla subxaana wa tacaala uu wax siiyey oo ku faanaya oo dhahaya aniga ayaa sidaan sameeyey, ama aan ku gala sheeganaya oo manaanka ah oo dhahaya qof hebel aniga ayaa sidaan ka dhigay. qur'aanka iyo xadiiska si cad ay ugu degeen arrintaasi. aayaddaani waxay caddaynaysaa waxay tahay in nicmo kasta qofka uu haysto sida maalka, aqoonta ama guul aysan asiga ka imaan ay ka timid alla subxaana wa tacaala xaggiisa. haddana uu yiraahdo anigaa sidaan u shaqeeyey ama anigaa sidaan u helay, isagoo aan xusin alla subxaana wa tacaala. qofkaas wuxuu galay gala sheegasho iyo kibir. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay 3 qofood jannada ma galayaan: midka waalidkiis aan u mahadcelin, iyo midka gala sheegashada ee manaanka ah. qofka dhahaya qof hebel aniga ayaa sidaan ka dhigay, qof hebel aniga ayaa sidaan u sameeyey, haakada hadal noocaas oo kalenta oranaya. iyo midka beenta ku fogaada. qofka markasta dadka xasuusiya wanaag uu u sameeyey, taasi waxay tusinaysaa waxay tahay kibir isla weyni. taasina alla subxaana wa tacaala ma jecla. waxaa wanaagsan qofka wanaag sameeyey inuu iska iloobo, qofka loo sameeyeyna inuu xasuusnaado. taasoo macnaheed ay tahay in aadan ku faanin wanaag aad samaysay, waayo alla subxaana wa tacaala ku xafidi doona ajirka aad samaysay. qofka wanaag kuu sameeyey alla subxaana wa tacaala ugu mahadnaq, laakiin haddii uu ku gala sheegto waa inaad si edeb leh u dhahdaa alla subxaana wa tacaala baa sabab u noqday, adiguna waxaad ahayd sabab wanaagsan. ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmariyo. qofka gala sheegta waa sida inta nin beer qoday haddana ku faanaya kaanama inuu roobka asiga keeno kale. subxaana allah. laakiin roobka iyo noloshaba alla subxaana wa tacaala baa haya. asalaamu calaykum.